marka laga reebo mataqaanaa ay shaqyabaha ay sameeyeen reer gaalkacyo ma jiraan wax kale oo na soo gaaray hadday noqon lahayd hay-ado hadday noqon lahayd mas'uuliyiin dawladeed hadday noqon lahayd dawladda federaalka dawladda galmudug intaba waxaan geynay codsiyadana dhammaan hadday noqon lahayd dawladdii federaalka xafiiskii madaxweynaha xafiiskii ra'iisul wasaaraha dhammaan waxaan gaarsiinay wasiirada iyo xildhibaanada laga soo doorto deegaankan waxaan sidoo kale mataqaanaa si hoose ula wadaagnay iyo si kore intaba dawladda galmudug waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa hay'adaha ka qayb qaata horumarinta inay garoonkan Cabdullaahi Ciise oo wax badan ka qaban doona nabadda magaalada Gaalkacyo oo lagu tiri magaalooyinka ugu colaadda badan leh Soomaaliya inuu qayb ka qaadan doono sidii nabad deegaankan u heli lahaa waxaan ka codsanaynaa hay'adaha horumarka ka shaqeeya iyo nabadda labadaba mashaariicdaas nabadda iyo horumarka intaba inay nooga qayb qaataan dhismaha garoonkan oo la soo bandhigay naqshadiisa iyo qarashkii intaba ku bixi lahaa oo guddiga hore uu soo bandhigay dhaqaalaha ku baxaya garoonka Cabdullaahi Ciise wuxuu kor u dhaafayaa 200,000 oo dollarka Mareykanka ah waa la kala qaybiyay ilaa 3 qaybood loo kala qaybiyay waxaa qayb la sameyn doonaa qayb lagu dayactiri doono inta hadda haysano hadday noqon lahayd garoonka qaybta basketka iyo VIP-da iyo dhismaha kala wareega oo lagu dayactiri doono qaybi waa qayb dhismayaasha cusub ee garoonka lagu soo kordhi doono sida hoolkii mataqaanaa shirarka qolalkii mataqaanaa kooxuhu ay isku diyaarin lahaayeen labada koox ee baratamaya qolkii uu garsoorayaashu isku diyaarin lahaayeen mas'uuliyii labada koox iyo mataqaanaa tarbuunyo ilaa 3 gaar oo lagu soo kordhi doono garoonka qaybta saddexaad ee ugu dambeysay waxay noqon doontaa qaybta la xiriirta rooga iyo mataqaanaa silgi rooga lagu wareejin lahaa oo ayaguna qaybta saddexaad intaas marka la isku dardaro waxay dhaafaysaa 200,000 oo dollar lacag ka badan weey